dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu weyn qaaradda Yurub oo ay ku nool yihiin Soomaali fara badan ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen tallaabada dowladda federaalka Soomaaliya ee u qaaday inay ku hirgeliso kaarka aqoonsiga Soomaaliya. Dadkii aan la kulmay ayaa intooda badan ka wada sinaa siday u soo dhaweynayaan in dowladda federaalka xilligan hirgeliso kaarka aqoonsi oo ah mid ay baahi weyn u qabeen. soo dhaweynaya tilaabo oo bogaadin mudan ee dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqday oo madaxweynuhu ansixiyay oo ku dayasho mudan kaarka qofka Soomaaliga iyo Kenyaatiga iyo Oromada loo kala saarayo oo Soomaalinimada cadeynaya waa wax la bogaadiyo shacabka loo tumo soo dhaweyn mudan aad baan ugu hambalyeynaya Soomaaliduna hal la qaataa la aqoonsigaaga ayagana aan gaabada ma ka cadamaysid kaarkaas international marka Jarmal ka soo qaaday safaaradda oo ula timaadey meesha laga haysto karayskaaga waa la aqoonsan yahay waa international kaar ah Soomaalinimada cadeynaysa Kenyaati ma soo qaadan karo Nigeria ma qaadan karo Ethiopia ma soo qaadan karo qofkii la xaqiijiyo in Soomaaliya ay la siinayaan kaarka muwaadinka aad baan ugu faraxsanahay ay dawladdu hadda soo saartay oo la bilaabay sababtu waxay tahay wuxuu kala saarayaa dadka muwaadiniinta oo dhabta ah oo Soomaaliga ah kumana soo gaban karaan dad ma taqaanaa wadamo kale ama ka yimid afka Soomaaliga waa la baran karaa laakiin dhalashada Soomaali lama noqon karo waa qofkii u dhashay un baa ah marka aad baan ugu faraxsanahay waa kaarka muwaadinka oo hadda waxa Jarmalka ka jira idin ma aqoonsanin waxyaabo saasa laakiin kaarkan waa kii dhabta ah oo kala saaraya dadka Soomaalida iyo dadka aan Soomaaliga ahayn marka wax weyn ayuu ka tarayaa kaarkan ummadda Soomaaliyeed qurba joogta gaar ahaan qurba joogta aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa ku faraxsanahay dawladdu waxay soo saartay in lis aqoonsado oo la sheego warninka ma Soomaaliya mise waa dad kale wixii hadda la soo saartay dadka waa in la aqoonsada inuu Soomaali yahay inuu Soomaali ahayn waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay in ma sha Allah waaye dadka hal la kala saaro dad waxaa jiro aan Soomaali ahayn iyo wixii Soomaali ah anaga dambe noo tahay dad badan wala ahayn dan u tahay oo waxa jiraan Soomaalinimada waa ma santahay shaakir dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu daaha ka rogay qaadashada kaarka aqoonsiga Soomaaliyeed kaasi oo ah mid muhiim u ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dowladaha adduunka ayaa muwaadiniintooda waxa ay siiyaan kaar aqoonsi si loogu gudbo caqabadaha ka dhalan kara inaan la qaadan kaarka aqoonsiga mahad cabdi maxamed mahad shaakir telefishinka Rise TV waddanka Jarmalka hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo ku sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto hawlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobilka وقار كميدا فايدوين كأديق إنترنت كهرمود ADSL Plus قريقا حفيزكا أما حرونتا شركة دادا استعمال ADSL Plus وكو حرنو دوني دا